magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xalay gelinkii hore waxay u ahayd mid ka mid ah habeenadii ugu xasaassanaa ay soo marto dad badan waxa ay naawileen magaaladu inay dib ugu laabato 1991 xilligaas oo ay burburtay dawladnimadii Soomaaliya waa xilli rasaas iyo madaafiic ay martigelisay magaaladu dad badan oo Soomaaliyeedna ay ku qaxeen taas ayay dad badan xalay naawileen inay ka dhacaysa muqdisho hase yeeshee xaaladdu waa isbedeshay wixii ka dambeeyay kowdii habeenimo xilligaas oo la dareemay saxan-saxada nabdeed waxaana meesha ka baxday colaad weyn oo ay dad badan oo Soomaaliyeed u arkayeen mid ay halis tahay inay dib u bilaabato qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee mucaaradka ah waxay aad u buunbuuniyeen dhacdooyinkii ka jiray muqdisho ayagoo u rogay hab qabaailaysan isla markaana dadka ugu baaqay inay kacaan oo ay hubka qaataan taasi waxay ahayd arrinta walwalka sii xoojisay inkastoo dhinaca dawladda federaalka aan laga maqal dhiila ku saabsan arrinta haddana warar kala duwan ayaa sheegayay inay dawladdu amartay in la soo qabto Saadiq John oo ahaa taliyihii ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir ee isniintii toddobaadkan ku dhawaaqay inuu joojiyay fadhi ay lahaayeen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Saadiq John ayaa degay xarun ay ku badan yihiin ama deegaanka uu ka soo jeedo halkaas oo la sheegay inuu isugu diyaariyay dagaal uu kaga hortago dawladda federaalka ee Soomaaliya macluumaad kala duwan oo laga helay dhacdadii xalay waxay hoosta ka xariiqayaan inay ahayd abaabul weyn oo socday 3 maalmood ee la soo dhaafay oo muuqanaya mid ay mucaaradka qaybo badan oo kamid uga jawaabi lahaayeen tallaabadii baarlamaanka federaalku ay muddo 2 sano ku kororsadeen dawladda federaalkii waxay u aragtay inay tahay halis weyn oo ammaan ciidan iska soo horjeeda ay ku sugnaadaan magaalada muqdisho sida aan horay warbixin kala duwan ugu baahinay waxa ay qayb ka ahayd tabooyin kala duwan oo xaaladda siyaasadeed ee dalka lagu kordhinayay gaar ahaanna in la abuuro 2 ciidan oo iska soo horjeeda ku wada sugan muqdisho kuwaasoo ugu dambayn xalkoodu noqon karayay in dhammaan dhinacyadu ay isku dhacaan dad Soomaaliyeed ay kala qaxaan ama dhimasho dhacdo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa galay dadaal xoog leh oo ku wajahan sida xalkama dambaysa arrinta loogu heli lahaa xalay Qoorqoor iyo xubnaha la jaalkiisa waxa ay badbaadiyeen in mar kale dawladnimada Soomaaliya ay dib soo gaarto dagaalo sokeeye ay ka dhacaan magaalada muqdisho ciidamada dawladana ay qayb ka noqdaan isku dhac hubaysan oo ka dhaca halka loo yaqaan shirka ofishaale oo ahayd halkii ay hore u deganaayeen gurigii saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Qoorqoor waxa uu ku guuleystay in la qaado ciidamada dawlad Soomaaliyeed oo hal meel ku wada sugnaa taasoo loo arkay mar kale inay xal kordhisay shaatigiisa ku wajahan inuu yahay hogaamiye waqtiga adag ka samata bixin kara xaaladda Soomaaliya sidaas oo kale xubnaha mucaaradka qaybo badan oo kamid oo arrinta ka hadlay waxa ay ku tahay dhimasho siyaasadeed iyo mid dhaawac sharafeed ba arrintii kala duwanaa ee xalay dhacay qaarkood oo aad u buunbuuniya dhacdada una rogay hab qabiilaysan waxa ay weli dareemayaan in arrintu ay tahay mid jaanis ka bannaan yahay oo la sii hurin karo dadka siyaasadda Soomaaliya la socda waxa ay tilmaamayaan in ku darsiga xukuumadda federaalka iyo baarlamaanka ee arrinta doorashooyinka ku wajahan iyo dagaalada kala duwan ee qabaa'ilka aan dib loo soo celin karin ama la isku xiri karin halka xubnaha mucaaradka kamid ay ku doodayaan inay tahay in arrinta kaliya ee looga jawaabi karo muddo kororsigii baarlamaanku ay sameeyeen isniintii la soo dhaafay inuu dhaco isku dhac ciidan taasna ay horseedi karto in miiska wada xaajoodyada dib loo furo haddii kale ay adag tahay in kooxda nabad iyo nolol ay miiska wada xaajoodyada yimaadaan dad badan oo Soomaaliyeed waxay aad uga walwalsan yihiin in dib loogu laaban karo waqtiga adkaa ee soo maray Soomaaliya waxaana hoosta ka xariiqayaan inaysan suuragal ahayn in Soomaaliya oo joogta 2021 aan dib loogu celin karin 1991 xilligii jamhadihii hubaysnaa ee qabaa'ilka u abaabulnaa ay meesha ka saareen kaligitaliskii Siyaad Barre laakiin waxa laga dhaxlay ay noqotay 30 sano oo fawdo ah iyo dagaalo sokeeyo oo isku keenidoodu dalku ay meel halis gaartay ilaa iyo maanta